yiraahdo. waa dadka ku amaanan in ay yihiin kuwa kaliya ee awooda in ay xakameeyaan caradooda ama xanaaqooda. waxa ay ku nool yihiin dhulka caanka ku ah qadarinta, ixtiraamka, tixgelinta iyo martisoorka. waa dad waxa kaliya ee ay u hoggaansamaan uu yahay xeerka biyo dhaaminta iyo qaanuunka waraabinta xoolaha. waa dad aan weligood cadowga ka labiqsan. haddii la iska hor yimaadana cidda laga cabsado ama laga cararo ay iyagu yihiin. waa dad la qabsaday nolosha adag ee ka jirta deegaanada qallafsan ee lama deegaanka ah. ma yaqaanin micnaha loola jeedo xuduud iyo soohdin midkoodna. laakiin waxa kaliya ee ay og yihiin ayaa ah in dhulkan saxaraha ah ee iska bannaan in ay iyagu leeyihiin. cidda kaliya ee ka talin kartana ay iyagu yihiin. muuqaalkan ayaynu ku baran doonnaa dabeecadaha qabaa'ilkaasi iyo meelaha ay degan yihiin, hab nololeedkooda iyo habka ay u socdaalaan ama ay u safraan, khayraadka ay haystaan iyo sida ay u maareeyaan, iyo xiriirka ay la leeyihiin dawladaha deriska ah iyo bulshooyinka kale. dhulka loo yaqaano saxaraha weyn bad ahaan waa saxaraha ugu ballaaran caalamka oo dhan. waxa uu dhacaa waqooyiga qaaradda Afrika meel u dhaxaysa wadamada Algeria, Liibiya, Niger, Mali iyo Burkina Faso. waa dhul cabirkiisu uu yahay 9 milyan kiiloomitir oo isku wareeg ah. sanadba sanadka ka dambeeyana lama deegaanku uu sii fidayaa sababo la xiriira isbeddelka cimilada. dhulkaasi saxaraha ah ee iska fidsan waxaa ku nool qabaa'ilka la isku yiraahdo dawaariq ama lagu naanayso ragga buluuga ah. imaatinkii adeegsiga geela xooggan ee tuurta weyn leh ayaa kacdoon ganacsi ka dhaliyay waqooyiga Afrika. si la mid ah sidii ay farduhu kacdoonka u geeyeen Masar sanadku markii uu ahaa 525 ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. geela xooggiisa, adkaysiga uu u leeyahay haraadka iyo caqabadaha deegaanka ayaa sabab u noqday in uu furto wadooyin ganacsi oo dhulka saxaraha ah. safarada ganacsi ee qabaa'ilka dawaariq waxa ay si xoog leh u bilowdaan inta u dhaxaysa bilaha Oktoobar ilaa February ee sanad kasta. bilaha u dhaxeeya muddadaasi ayay sameeyaan safarro aad u adag oo hadafkooduna uu yahay ganacsiga iyo baayac mushtarka ay u baahan yihiin bulshooyinka kala duwan. dhowr maalmood ka hor safarka, haweenku waxa ay diyaariyaan cuntada ugu muhiimsan xaggooda. waa muufo ka samaysan dhowr shay oo la isku cajimay sida timir, farmaajo ari, galley ama masago la shiiday oo daqiiq laga dhigay. waa cunnada ay ragga safarada ahi u isticmaali doonaan socdaalka ay ku tagayaan deegaanka laga qodo milixda ama cusbada ee la yiraahdo veji oo ku taala xeebta Bilma. kulaylka daran ee jira dartiis iyo dhulka cusbada badan waxa ay ragga halkaasi ka shaqaynaya ama u safraya ay halis ugu jiraan in ay fuuq baxaan. sidaas darteed waxa ay samaysanayaan cabitaanada markaasi uu jirkoodu u baahan yahay. waxaa ka mid ah shaah, cusbo iyo sokor lagu kariyay si jirka uu fuuq celin ugu sameeyo. silsilada buuraleyda Ayr waxa ay ku taallaa waqooyiga iyo bartamaha dalka Niger. dhererka buurtu waa 2000 oo mitir, iyada oo aad moodo in ay tahay jasiirad ay meel kasta ciid kaga xiran tahay. halkan waa deegaanka qabiilka Kalawai oo ah hogaamiyayaasha ugu wanaagsan ee safarka ah. magaaladooda Taymiya waxa ay ku taallaa waqooyiga buuraha Ayr oo dhacda qarka wabiga qalalan oo biyuhiisu ay si teel ah u dureeraan. marka ay qabaa'ilku si isku dubaridan u qoob ciyaaraan oo ay durbaanada si xamaasad leh loo garaaco, waa marka ay jiraan munaasabado gaar ah sida marka uu aroos jiro iyo marka uu wiilka cagta geliyo da'da 15 jirka. markaasi waa marka ugu horeysa abid ee si rasmi ah wiilka loogu ogol yahay in uu madaxiisa cimaamad ku duubo. munaasabada oo ka kooban heesa dhaqameed, gurbaan garaacis iyo qoobka ciyaar ayaa si xamaasad leh isugu duba dhacda marka ay ku soo biiraan madaxda qabaa'ilku ayaga oo jiibta iyo jaanta isla helaya
loona garaacayo gurbaanka tendhida ay yiraahdaan isla markaana kor u qaadayaan calankooda gaarka ah. waa dad aad u garanaya qawaaniinta biyo dhaansiga. waxaa la soo gaaray waqtigii loo safri lahaa deegaanka Taymiya. safarku waxa uu qaadan doonaa muddo bil ah, sii socod iyo soo socod. sidaas darteed waxa ay hore u sii qaadanayaan caws ku filan in ay geela siistaan. qirbadahooda ayay biyo ka buuxsanayaan si ay jidka ugu sii maraan. waxa ay sii marayaan ceel ku yaala deegaanka Ayr. Come investire con solo €1? Con Trading 212 puoi acquistare meesha ugu dambaysa ay biyo ka heli karaan. wixii markaasi ka dambeeya meel biyo leh ma arki doonaan. guryaha ay ku nool yihiin iyo agabka ay ku dhex isticmaalayaanba waa kuwo iska fudud. teendho ka samaysan haragga xoolaha, xargo iyo tiirar la isku rakibay ayaa hooy u ah. kaliya waxaa muhiim u ah meel ay kaga gabaadsadaan kulka qorraxda iyo ciidda ay dabayshu firdhinayso. guriga waxaa dhex yaala sariir dhaqameed. waa sariir ka kooban jirridda geedaha oo dhulka lagu muday iyo ulo yaryar oo la isku tixay. waxaa lagu goglaa gogol caw ka samaysan. weelasha cuntada iyo cabidda loo isticmaalo waa kuwo soo jireen ah. bocor la qalajiyay oo dhexda laga qoray ayaa baaquli u ah oo ay cuntada ku cunaan kuna kaydsadaan. dhammaan agabkaasi guriga yaalla oo ay ku jirto teennada guriga uga samaysan, xaaska ayaa meherkeedii ku soo iibsata. marka la furana iyada ayay u harayaan. ninka mar allaale gabadha lagu nikaaxo waa in uu isla markiiba meherka hore ka bixiyo si ay gabadhu guri ugu dhisato. agabkii lagu dhaqmi lahaana loogu sameeyo ama ay iyadu soo iibsato. dadkan maadaama ay yihiin reer guuraa aan si rasmi ah meel ugu nagaanin, alaabta iyo guriga ay dhisteenba way ka tagaan marka la guurayo. waxay ugu talagaleen in dadka kale ee deegaanka u soo guura in ay ku dhaqmaan alaabtaas. iyaguna meeshii ay u guureen ayay ka helayaan alaab laga guuray ama mid cusub ayay samaysanayaan maadaama ay wax iska fudud ah yihiin agabka ay u baahan yihiinba. xorriyad u noolaanshuhu waxa ay jibisaa adoonsiga dawladaha casriga ah. dawaariqu waxa ay deegaanadooda ugu nool yihiin si madax bannaan. cidina kuma amar taaglayso. canshuur aysan awoodin lagama qaado. sharciyo iyo xeerar dhinac u dheelinaya laguma dhaqo. siyaasad, khiyaano iyo isdabamarayn ku dhisanna cabiid uma ahan. maamul dhiigmiirta ah danahooda uma hoos fadhiyaan. waa dad iskood u nool. dhammaadkii qarnigii 18aad sahmiyayaal reer Yurub ah ayaa bilaabay in ay u safraan dhulka saxaraha weyn la yiraahdo. intooda badan waxa ay sahmiyayaashaasi ku dhinteen iska horimaadyo ba'an oo ay la galeen dawaariqa. dawaariq waxa ay markaasi bilaabeen in ay canshuur ku soo rogaan dadka doonaya in ay ka gudbaan saxaraha, haddii kale in dhac iyo dil la isugu daro. dagaalyahanada dawaariq ayaa muddo dheer gacanta ku hayay dhammaan wadooyinka saxaraha loo maro. ilaa qarnigii 20aad waxay soo arkayeen in ay yihiin milkiilayaasha saxarahan. waxayna dileen qof kasta oo aan u hoggaansamin amarkooda. kadib qabsashadii reer Yurub ee qaaradda Afrika, Faransiisku waxa uu soo rogay xuduudo jeexjeexay midnimadii bulshada dawaariq. mid kasta waxa uu raacay dhulalkii la kala qoqobay ee wadamada deriska ah ee waqooyiga Afrika. waxa ay noqdeen ciidan jabhad ah oo xorriyad u dagaalamaya.
gaar ahaan kuwa ku kala nool wadamada Mali iyo Niger. qofka dawaariqa ah ma rumaysna wax xuduud ama soohdin la yiraahdo oo caqabad ku noqon kara xuriyadiisa in uu dhaqdhaqaaqa ah. isma dhiibaan, mana qiraan in ay yihiin dad aan dal lahayn. waxa ay sheegtaan in ay dhulka leeyihiin, mana rumaysna dawladnimada casriga ah, laakiin waxa ay aad u dhowraan xiriirada ganacsi ay la leeyihiin qabaa'ilka Hausa iyo Yarma, kuwaasi oo ku kala nool wadamada kale ee waqooyiga Afrika sida Nigeria. waxay u iibgeeyaan cusbada, waxayna ka soo gataan dalagyada sida galeyda iyo masagada. dhanka kale dawaariqu waa dad farsamo yaqaan ah oo xirfad sare u leh birtumida. iyaga ayaa gacantooda ku samaysta hubkooda fudud sida sayfaha, waramada, tooreyda iyo faasaska. qofka dawaariqa ah iskama dhaqaaqo isaga oo aan wadan seeftiisa nooca ay u yaqaanaan tukuba. waa astaan ka tarjumaysa haybadiisa qof ahaan iyo sharafta nasabadiisa. ragga diinta ku xeel dheer iyo macallimiinta dugsiyada quraanka dhigta waxa ay ku jiraan dabaqadaha sare ee bulshada. waa kuwa loogu ixtiraam badan yahay. howlahooda gaarka ah waxa xil iska saara qoysaska wax loo baro caruurtooda. xoolaha waa loo raacaa si bilaash ah, biyaha waa loo dhaamiyaa, guryahana waa looga adeegaa ayada oo loola jeedo sharfid iyo karaamayn. dawaariq waa muslimiin sunni ah haysta madhabka maalikiyada. waxayna ku hadlaan luqadda dawaariq saddexdeeda lahjadood ee kala ah tamajiq, tamashiq iyo tamahaq. raggu marka ay safarka ka soo noqdaan oo ay bil ama labo reeraha ka maqnaayeen, waxaa loo qabaa hilow iyo xiiso daran. waxaa laga sugayaa wixii nooli ah oo ay deegaanka u keeneen. waxaa loo qabtaa xaflado soo dhaweyn ah. waxaa loo garaacaa durbaano, waa loo qoob ciyaaraa, waxaana loo qaadaa heesa dhaqameed lagu soo dhaweynayo laguna farxad gelinayo. intaas ayaanu ku soo gunaanadaynaa warbixintan dokumentariga kooban ah ee aynu ku soo qaadanay nolosha, dhaqanka, sooyaalka iyo deegaanka qabaa'ilka dawaariq ee ku nool waqooyiga qaaradda Afrika. tan iyo muuqaalka xiga oo xiiso leh waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. amaana Allah.